waxa kale oo anigu aan ku talinayaa in la iska fahmo waxyaabaha guriga ka dhacay si loo xalin lahaa bili aadan baa leeyahay nolosha arkayso kulli waa mushkila Soomaalidu way maamahdaa waxay tiraahdaa carab yeelka isugu dhawo waa isqaniinaan noloshu markay socoto oo ay ismu tahay wadada haysato oo la isla ogyahay waxaan markay dhacaan heshiis laga yahay wax lagu xalin lahaa dhibaato ma keento laakiin markii wixii dhacay lagu baraarugo oo lagu murmo oo ayadan waxba la iska oran ama aan isfahmi hore ka jirinin waxay keentaa in la daaweyntoodu khilaaf keento la isku murmo waqtiga uu ku lumo marka dambana aad isku dhac ka yimaado waxa loo baahan yahay marka labada qof in ay sameystaan isfahamkoodu ay ku daraan inay xeer-hoosaad sameystaan xeer-hoosaadkaas muxuu yahay in la qaybsado guriga mas'uuliyadiisii odagu inuu mas'uuliyadiisa kore leeyahay guriga kharashaadkiisii mas'uuliyadiisa laga rabo hooyaduna inay tahay guriga hoose iyo shaqadii iyo ilmihii iyo wixii in maamulayso kow haddii waxaa la sameeyo tusaale ahaan haddii khalad ka dhaco waqtiyada qaarkood haddii uu ninku khalad sameeyo khaladkaasoo ah khalada lagu talagelin maxaan ka yeelaynaa haddii ku xadgudbo waalidkii xidkii maxaan ka yeelaynaa haddii adigii khalad kaa soo dhaco oo deriskii aad dhibto maxaan ka yeelaynaa haddaad aniga caydo maxaan ka yeelaynaa afalgaada ilmaha haddaad ku tiraahdo oo ilmihii aad caydo waalidkooda caydo adigu macallinkii ku tababarayay akhlaaq xumada iyo dabdarrada aad noqoto maxaan ka yeelaynaa waa in la iska fahmaa xeer hoosaad idin dhexeeya waa inuu jiraa oo markii hadhowto waxa dhacaan la yidhaahay maxaan ka degsanaa waxaan oo nooga yaalay ganaax haye maxaan ka degsan waxaan iyo waxaan waa inaan ka heshiina sababtoo daaweynta waxaa ka fiican ka hortaga in wax isla ogyahay oo proactive la yahay oo aad ka sii fakartaan waxa dhici kara waxay ka fiican tahay inaad reactive noqotid oo shaygu markuu dhaco kadib indhaha kala qaadid ama dad kaleeto idin dhex galaan waxa kale oo qorshahaas markuu dhamaado waa qorshaha koobaad oo isfahamka qorshaha dhexe ee reerku u baahan yahay waxa weeye reerka hadii gabadha yimid ama ninkii odag gabadhii ninkeedii baa ku bilowdaa qoysku wuxuu ku bilowdaa gabar iyo nin buu ku bilowdaa sanad kadib 2 sano kadib de meeshan waxa laga yaabaa Ilaahay inuu barakeeyo oo la isku soo kororto maxaa nooga yaar ilmaha maxaa noo qorshaysan horta daan doonayna inaan sameeyno haddii Ilaahay noo idmo imisaan doonayna inaan ilmo aan korino waa in idin qorshaysan tahay sanadahee u dhaxaysiinayna ilmaha sanad baan u dhaxaysiin karnaa maanta magaalo la joogaa magaaladuna way shidab badan tahay way kharash badan tahay way culays badan tahay irsaaqada Ilaahay way ballaaran tahay laakiin waxa la rabaa si hooyada caafimaadkeeda loo ilaaliyo ninkaana uu uga badbaado inuu dhakhtar joogtaa uu ku dhex jiro habeen iyo maalin in xoogaa timeka loo kala dheereeyo ilmaha sida dhaqaatiirta ay ku taliyeen sanad 2 sano loo dhaxaysiyo si hooyadana caafimaadkeeda u koro ninkaana uusan kharash joogtaa iyo isbitaalka uga maalmo sababtoo ah ilmuhu hadday isku nug noqdaan hooyaduna waa jiranaysaa ilmuhuna waa jiranayaan culayska qoyskuna wuu ballaaranaya wuu badanaya gabadhina jaanis ma helayso ay ku nafisto jaanis ay ku hesho waa maray sido iyo maray umul tahay taasna waxay u keenaysaa culays iyo caafimaad darri u keenaysaa marka waa in balaan jiraa arrinta ku saabsan ilmaha iyo waqtiga iyo inta insha Allah ta'ala haddii Allah idmo ay ka fekereen koriyaan insha Allah ta'ala anagu casharadana dib kale mar kale soo noqon doona waa Cusmaan Sheekh qoysbiga idin leh mar kale iyo kulanti wanaagsan wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.